xildhibaan khadar guun iyo sidoo kale xildhibaan mubaarak xeeldheer oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa soo dhaweeyay qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee Somaliland ay ka soo saartay heerka furista ururada siyaasiga ah ee Somaliland maray ku sugnaayeen magaalo madaxda gobolka Saaxil ee Berbera. waxaan halkan uga faa'iideysanayaa fursadan inaan hambaliyeeyo maxkamadda sare oo maanta ku dhawaaqday go'aankii soo saartay ururada lagu furayay oo ururadii ay furan yihiin anaguna aanu leenahay ururadii diyaar baanu nahay inaanu furanno haddii aanu nahay dhallinyarada da'yarta haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku wareejinayaa xildhibaan khadar guul. hambaliyo kalena waan raacsanayaayoo maanta madaxaana furan baanu qaadanaa haddii kol haddii anigiiyo aanu hayn xildhibaanadii riixayay in xusbiyada la furo waa ilaahay mahadi. waxaan kaloo idin xasuusinayaa hees wadaniya oo aan u tiriyey 2019 Toronto oo qaaday Iskilaaji qaran weeye Somaliland qorshe iyo nidaam loo kuna qoran dastuurka oo qeexaya xeerkuna hadday laba isqabatana qorweynta dhaqankiyo guurtiba u qaybsan xalisa qardoofaha qaran mid ayaatiin qoom lagu hirtaatiin qaali weeye nabadu Allah haydi kala qubin qaadir hayd magaga aad u maastan maanta ku soo siyaasi maxamed xaaji yaasiin siciid oo ka mid ahaa musharaxiintii golaha wakiilada ee gobolka Togdheer ee aan ku guuleysan kursigaasi ayaa isaguna si lamid ah u soo dhaweeyay qaraarka maxkamadda sare ee Somaliland. marka labaad waxaan hambaliyo halkan uga dirayaa maxkamadda sare go'aankii wanaagsanaa ay soo saartay oo ahaa in lagu wada qancay xisbi mucaaradkii iyo dadkii fartoodna ku hayba oo noqday go'aan ka wada farxiya. waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin jamhuuriyadda Somaliland waxay noqotay dheemantii la doondooni jiray dheemantii marka cid waliba way raadinaysaayo waa la raadinayaa. maanta waxay noo muuqatay jamhuuriyadda Somaliland in meel walba invitation uga imanayo gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda markii la ansixinayo wuxuu inoo sheegay Maarch inuu tagayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mareykan waa guul u soo hoyatay shacabka reer Somaliland. inaga doorashadeena iyo sidii wax inooga dhaxay waa gaar laakiin qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waa muqaddis waana meel looga soo wada jeestaa. waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ku soo koobayaa laba qodob oo kaliya. qodobka koowaad horta inaan nabadda iyo xasiloonida ilaalino oo nin waliba maanta gurigiisii iyo reerkiisii iyo ciyaalkiisii waxay ku wada wax ku dhiganayaan waa nabadda Ilaahay ina siiyey inaguna aynu ilaalinayno. horta marka koowaad baa qandir waxa inaynu xasiloonida iyo nabadda ilaalino oo curfiga iyo nacaybka iyo qabyaaladda iyo qurinka aan iska reebno waan ku dardaarmayaa taa. qodobka labaad soo jeedana waxa weeye doorasho fara badan bay soo gashay jamhuuriyadda Somaliland oo waa isugu dhiibo waxa weeye marka dambe xaasilkun bay timaadaa guurti qiimo leh ayaynu leenahay iyo baarlaman maasha Allah oo iyaguna go'aamiya go'aamada kooda wanaagsan. waxa jirta haddaba qodobkayga kale uu daaray doorashadii isku sidkanayd ee maalintii dhaweyto bishii shanaad 31keedii dhacday May waxay noqotay mid la wada hadal hayo caalamka oo dhan uu hadal hayo ku suntay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxa xigtay doorashadii guurtida tii ururada furistaanka tii madaxweynaha wixiiba way wada daba yaalaan bal sidii aynu kala horeynay inaynu folowgeeda qabanaa horta kow meesha taala. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera.